waxaa caawa soo gaaray magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga diyaaradii 8 dhaawacyo 16 ah iyo ehelkooda oo la socday kuwaasi oo ay waxyeello ka soo gaadhay qaraxii iskooyska ee Kaskantarool afgooye ee magaalada Muqdisho waxaa soo dhaweynta dhaawacyada ka qayb galay madax ka socotay dalka Turkiga mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara ardayda wax ka barta dalka Turkiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dawladda Turkiga ayaa dhaawacyada u sii diyaarisay gaadiidka gurmadka degdega ah oo markiiba geeyay isbitaallo kala duwan oo loogu talagalay in xaaladooda lagula tacaalo Allah u naxariistay waxa goordhoweyd gudaha magaalada Ankara ku geeriyootay Aamina Ismaan Khayre oo ka mid ahay dadka ay xaaladoodu culus tahay ee laga soo qaaday magaalada Muqdisho waxa ugu horreyn si wada jira warbaahinta ula hadlay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Saleebaan Kaarshe iyo wasiirka caafimaadka ee dawladda Turkiga Dr. Fakhruddin Dün sabah bildiğiniz gibi dost ve kardeş ülke Somali'de olan dawladda Turkiga hadana waxaan ogaanay arin aad u xanuun badan oo ah qarax weyn inuu ka dhaco Soomaaliya shalay isla markii qarax noocaas inuu dhaco aad baan uga murugoonay dawladda Soomaaliya madaxdeedu waxay naga codsadeen inaan u soo dirno diyaarad ambulance sida dhaawacyada loogu qaado marka hore waxaan go'aansan inaan dhaqaatiir Turkiga u dirno Soomaaliya iyo qalab daawo kadibna dadka ugu culus ee wadanka wax looga qaban karin daaweyn u soo qaadno Soomaaliya dhibkaas ka dhacay waan ka xunnahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliya ha ka qaado dhibaatada iyo qaraxyada iyo problemka insha Allah sidaan oo kale dhibaato iyo qarax iyo gurmad inaan mar dambe loo baahan baan rajaynaynaa إلهي دتك دنت الله هون حدث دتك داوعنا إلهي سبحانه وتعالى عافمة هسيو وحنسيو كله كحنا هاي إن أوجان إن دنتين لبا موادين أو ودن كان تركيا كم ده كواس أوتجي إن أخذ ميان شعب كصومالية وراه قرب استاجان هذا دولة التركية أو جهر محور أردوغان شعب كده وحمر بديار هاي إن شعب كصومالية عن قرب استاجنو إلهي مركله عافية ليه وما سنتين هبي ونكس madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga waa uu ku mahadsan yahay garabtaaka mar walba garab taagay walaalaha Soomaalida aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan shacabka Turkiga iyo walaalaha Turkiga waa walaal jira waana run ahaantii walaalka Roma ee ay ku naaloonayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed mar walba dhinac taagan hadii dib dhaco iyo waqti kastaba waqti dhinac taagan aad baan ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya afka shacabka Soomaaliyeed afka madaxweynaha jamhuuriyadda afka safiirka safaaradda iyo dhammaan safaaradda oo dhan walaalaha dhinku gaadhayna aad baan uga xunahay oo tacsideynaa ehelada khaaska labada injineer ee ku dhintay naftooda huray dhismaha dalka Soomaaliya u tagay naftooda ku waayay iyagana familiyada ka dhinteen waan u tacsideynaa si gaar ah ayaan ugu tacsideynaa tacsi guud oo ka socota ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed anoo ku hadlaya afka Soomaalida oo u tacsideynaa waxaan rajaynaynaa inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibkina gaadhay uu noo booyadhayo waana runtii masiibo qaran oo maanta taabatay guri kasta oo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhu ilaa xalay ilaa saaka oo diyaaradda soo ambaxay ma aysan istaanbay hayeen taasana muujinaysa inay masiibadu ballaaran tahay dhankooda gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara Daahir Axmed Doore oo qaybsamaha safaaradda ee dhinaca ciidamada General Garabay ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa warbaahinta la hadlay aniga iyo anoo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha ku xigeenka Cabdi Fataax waxaan halka u taaganaa inaan maanta u soo gurmanay ummadda marka ugu horeysaba waxaan ku dhaqaaqnay inaan u keenno jaakadaha dhaxanta laga gashto taasoo nagu kaliftay inuu jawiga maanta aad u qabooban yahay waanu taaganay darajo 0 ah ama 0 ah marka taalaaligeed ayaan waxa ugu talagalnay dhaawaca socda iyo qofka wadaba in aanu ka saacidno jaakooyinka kadibna aan ugu gurmano isbitaalka Brit laakiin markii ugu horeeyay dhaqaaq aan sameynay midka buu ahaa wallahi xaaladda dareenkayga ma aha mid aan qiyaasi karo hadana alxamdulillah wuxuu Ilaahay qadaray inaan ku samirnaa bukaanada 16 qofood waaye waxaan u diyaarinay 16 qof oo turjumaan ah oo bukaanka xaaladiisa ka soo warbixiya si aan ula socono bukaanka xaaladiisa insha Allah waxaan diyaar u nahay dadkaas xaaladooda caafimaadkooda dhaqdhaqaaqooda waxay u baahan yihiin inaan kafaalo qaadno haddaan nahay ardada Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Ankara waajibaadkii ardaynimo waajibaadkii Soomaalinimo waajibaadkii
damiirnimo intaasba inaan ka soo baxna annaga diyaar u nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacsana ilaahay dhaawaceedu allah bogsiiyo dadka walaalaha Soomaaliyeed ee ku mashquulsan taakulaynta iyo waxqabadka dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho oo isbitaalada qaranka iyo isbitaalada private-ka ku jira iyo ummadda Soomaaliyeed oo marxaladda adag ku jirta dadka Soomaaliyeed ee gacanta weyn ka geysanaya ilaahay waxaan leenahay haydin abaal mariyo dawladda Turkiga ah aanu joogno maanta caasimadeeda Ankara waxay halkaan noogu keentay dhaawacyo aad iyo aad u fara badan oo dheer 16 gaaraya iyo dad la socdo oo iyaguna caawinaya waxay gacan furan ku soo dhaweeyeen shacabka iyo dawladda Turkiga waxaanu taaganahay airportkii dhaawacyadu ka soo degeen halkaan waxa isugu yimid madax fara badan iyo mas'uuliyiin dalka Turkiga ah iyo dhammaan isbitaalada u waaweyn dalkan Turkiga waxay ilaahay uga baryaan dadkan ilaahay caafiyo wixii hil iyo hoo iyo dawana ilaahay idankiisa iyaga ayaa ku tacaali doona ilaahay wax bogsiya ilaahay wax caafiya ilaahay ayaa dhibaatada qaada laakiin dad shacab oo Turkiga iyo dawladda shacabka Turkiga waxay aad iyo aad u duceynayaan oo ummadda Soomaaliyeed ilaahay uga baryaan dhibaatadan ku raagtay ee soddon jirsatay ilaahay uu ka qaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaa dhaawacana la soo gaarsiiyay ee dalka Turkiga la keenay inuu noo caafimaado insha Allah sidoo kale waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan qoysaskii eheliyadii iyo saaxiibadii dadkii shalay ku dhintay qaraxaas dhammaan waxaan u mahadcelinayaa tiimamkii caawa halkan joogay caawita waxaan aad iyo aad yani qiirooyinka dhaawacu aad buu qaybtood u liiteen wax laga sheekayn karo maaha waxaan indhaha ku aragnay arrintii igu xanuunka badneed waxay aan la kulmay intaan taagnaa goobtan hooyo soo degtay oo markaan saa u soo dejinay jaakadaha aan u qaybinaynay soo dhawo ku niraahnay wada gabadheeda oo dhaawaca tiraahday 3 gabdhood ayaan dhalay 2 gabdhood oo kamida gabar way iga dhimatay qaraxii shalay gabadhaana waana ku samirsanahay qadarka iyo wixii ilaahay ii keenay hooyada tiriba aad iigu xanuun badnayd ilmo yaro 2 jir ayaa ku jira dadka nala soo gaarsiiyay caawayto ma laga sheekayn karo ilaahay waxaan ka baryaa musiibadan inuu ilaahay naga dulqaado ilaahayna uu maaragtay ummadda nasr degdeg u soo rido Ahmed Abdulqaadir Ismaaciil Ahmed Darwish magaalada Ankara